Assalaamu calaykum. Daawadayaal halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa sheekooyin murti badan xambaarsan. Sheekada koowaad waxa ciwaankeedu yahay Mayla socotaa. Waxayna ku bilaabanaysaa sida tan. Waxaa la yiri nin boqor ahaa oo xukumi jiray mid ka mid ah boqortooyinkii qadiimiga ahaa ee adduunka soo maray ayaa u yeedhay maalin maalmaha ka mid ah laba nin oo ka mid ah dadkii deganaa magaalada xarunta u ah boqortooyadiisa. Labada nin waxay ahaayeen ninkii magaalada ugu bakhiilsanaa iyo kii ugu xaatilsanaa. Dabadeed markii casuumadii loo fadhiistay ayaa boqorkii intuu istaagay ku yiri labadii nin, maanta waxaan idinku yeeray oo aan idinku sameeyay casuumadan inaad wax kasta oo jeceshihiin iga codsataan aniguna idin fuliyo, laakiinse waxaan ku xidhayaa hal shardi oo ah in kan hore waxa uu dalbado aan kan dambe u labalaabayo. Tusaale ahaan, hadduu 100 halaad kan hore codsado, kadib waxa siin doonaa 200 oo halaad. Kadib labadii nin ayaa mid waliba wuxuu jeclaystay inuu noqdo qofka dambe ama se uu yeesho codsiga dambe. Dabadeed waqtiga ayaa ku dheeraaday intay midba kale u eegayay. Markii hadalka soo bixi waayay ayaa boqorkii intuu qoslay yiri, waan arkaa waxbaan idin haystee 30 daqiiqo gudahood haddaad codsigiina ku soo gudbin weydaan waa idin khaarijinayaa, yacni waa idin dilayaa. Nasiib darro, markii ay dhacday daqiiqadii 29aad oo ay u harsan tahay 1 daqiiqo waqtigii la qabtay ayaa waxa istaagay xaasidka ahaa oo yiri, boqor, aniga waxaa dhib igu haya iftiinka ama sayidayska cadceedda, sida darteed waxa la codsanaya in hal il laga rido si ilayska qoraxda aan qayb ka mid uga nasto. Markii codsigii xaasidka la firiyay ayaa kii bakhiilka ahaana labada indhood laga riday. La soco qaybta labaad ee sheekada Mayla socotaa.